qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan barwaaqo gaarne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وهبين سنين ويتلايسو قليسو كنا بيغن 27 سبتمبر 2021 marka la ku soo dhawaada muuqaalada taxanaha ahaa ee ku saabsanaa maadada Ingiriiska gaar ahaan grade-ka 8aad waxaan ku jirnaa anaga hore uga soo hadalnay exercise hore oo ku saabsanaa in spite of kan wuxuu noqonaa exercise-kii 3aad ee ku saabsan in spite of ama using in spite of isticmaalida ayadoo la og yahay kuna qoran page-ka 23aad exercise saddexaad markuu wuxuu leeyahay ayadoo aan soo sheegnay inay tahay in la isticmaalo in spite of right waxa qortaa ama qor 5 of your own sentences 5 jumladood oo adiga yani maskaxdaada ka yimid by using adigoo isticmaalaysid in spite of marka waxa laga rabaa in writing ku sameyso in aad qorto 5 sentences in aad qorto 5 jumla aad qorto waliba sentence jumlo waa in tahay your own jumlooyin maskaxdaada ka soo burqaday inay yihiin oo aysan ahayn jumlo buug ku taalo ama jumlooyinkii buug oo tusaale ahaan uu sheegay marka write qor 5 of your own sentences 5 jumladood oo your own ah oo aad maskaxdaada ka soo burqaday by using adigoo isticmaalaysid in spite of ayada oo la og yahay marka buug saasoo ku sameynaa jumlada koowaad oo kale leenkaas dheer aad rabaa inaad ku qorto ama xariiqaas dheer inaad ku qorto jumlada labaad sidaas oo kaleeto marka dhisid laakiin waxa la rabaa inaad ku dhex isticmaashid in spite of tan saddexaad si la mid ah xariiqaas dheer waxa la rabaa inaad ku qortid jumladii lagu diray walibana adigoo isticmaal lagu dhahay in spite of su'aasha kale ee ku xigto ayadana 4 iyo 5 ayagana sidaas oo kale leenkaas ama xariiqintaas ayaa la rabaa inaad jumlo ku qorto adigoo isticmaalaysid in spite of midda shanaadna sidaas oo kale waxaa la rabaa meeshaas bannaan ee xariiqinta ah in aad dhammaystirto adigoo adeegsanayo in spite of numberka koowaad marka haddii mid aan u samayno marka ugu horeysa waxaan dhahaynaa answers jawaabo marka waxaan dhisaynaa jumlooyin anagoo adeegsanayno ama ku dhex isticmaalayno jumlooyinkaas in spite of ayadoo la og yahay Muhammad helps inuu caawiyo the poor midka faqiirka ah in spite of ayadoo la og yahay Muhammad helps inuu caawiyo oo uu saacido the poor midka faqiirka ah marka hadii qof caawinayo ay jirto waxyaabaha la madeyn karo waxa kamid ah qofkaas caawinaad sameeynayo inuu uu yahay qof yani hantiile ah oo kaleeto ama xoolo haysto laakiin caawinaada kuma xirno qofka inuu xoolo ama hanti ama wax kale u haysto caawinaadu waxay ku xiran tahay garashada qofka marka in spite of ayadoo la og yahay Muhammad helps inuu caawiyo the poor midka faqiirka ah he isn't rich isaga ma aha qof rich ah oo qani ah yani caawinaadu kuma xirno inuu rich yahay qofka ama wax kale uu yahay marka laga baxo su'aashan oo loo hadlo sidii oo si caadi ah caawinaadu waxay ku xiran tahay qofka garashadiisa iyo yani asaga ku xiran tahay marka in spite of ayadoo la og yahay Muhammad helps inuu caawiyo the poor midka faqiirka ah he isn't rich qof rich ah ma aha qof qani ah ma aha Muhammad marka buurna inuu caawiyo isagana uusan rich ahayn waa laba xaaladood yani oo iska soo horjeedo oo basay isku ah waxaan la adeegsanaa in spite of numberka labaad ayadana waxaan dhisaynaa jumlo anagoo adeegsanayna in spite of ayada oo la og yahay
her young age da'deeda yaraanta ay da'deeda yar tahay. In spite of ayadoo la ogyahay her young age da'deeda yaraanta da'deeda ayadoo la ogyahay, she did waxay samaysay good job, shaqo fiican ay samaysay ama shaqo wanaagsan ay samaysay. her young age da'deeda yar ama young age da'yaraasho iyo good job waxay isku tahay opposite. young age waxaa waaye qof da'diisa ay yar tahay, qof da'diisa ay yar tahay marka good job inuu qabto, shaqo fiican inuu qabto waa laba xaaladood oo opposite isku ah. haddii xaaladaha opposite isku yihiinna maalmahan ama muuqaalada hore uga soo hadalnay waxaa loo adeegsadaa in spite of. marka in spite of ayadoo la ogyahay her young age da'deeda yaraanta da'deeda ayadoo la ogyahay ama da'deeda oo yar, she did waxay samaysay good job, shaqo fiican ay samaysay ama shaqo wanaagsan. marka meeshaasna waxaan ku dhisnay jumlo ayadoo lagu dhex isticmaalayo in spite of. jumlada saddexaad, he has to go work, waa inuu aadaa shaqada. he has to go waa inuu aadaa work shaqada. in spite of ayada oo la ogyahay, in spite of ayada oo la ogyahay his broken leg, lugtiisa jabniinka lugtiisa ama lugtiisa jaban. marka go to work yani has to go to work, shaqo in la aado iyo qofka shaqada aadi lahaa in broken leg ay tahay lugtiisa ama lugtiisa ay jaban tahay waa laba xaaladood oo opposite isku ah. marka he has to go waa inuu aadaa work shaqada. in spite of ayada oo la ogyahay his broken leg, lugtiisa oo jaban ama jabniinka lugtiisa. numberka afraad, haddii jumlo kale aan dhisno ayada oo shan su'aal ahayd, marka numberka afraad haddii aan jumlo haddana ku samayno anagoo adeegsanayno in spite of, marka hore waxaan dhahaynaa answers yani saddex hadda kasoo jawaabnay, labada noo hartay ayaan ku daraynaa oo aan ku dhammaystiraynaa. number afar marka in spite of ayadoo la ogyahay the rain, roobka ayadoo la ogyahay roobka, we entered waan galnay the examination imtixaanka. in spite of the rain ayadoo la ogyahay roobka yani inuu roob da'ay ama uu markaas da'oyo, we entered the examination imtixaanka waa galnay. marka haddii roob uu jiro oo xaalad jabi roobaad uu jiro, waxyaabaha lasii saadaalin karo waxaa ka mid ah in imtixaanka markaas aan la galin ama uu baaqdo. marka rain wuu jiray, imtixaankana waa la galay, waa xaalado opposite isku ah. markaasna waxaa la adeegsadaa in spite of. numberka shanaad oo u dambeeyo in spite of ayadoo la ogyahay completing in uu dhammaystirtay his master's degree, darajadiisa labaad ee waxbarashada. master waxaa la lahaa darajada labaad ee waxbarasho laga gaaro. marka in spite of ayadoo la ogyahay completing in uu kaamilay ama uu dhammaystiray his master's degree, darajadiisa masterka uu completing ku sameeyey ama uu dhammaystiray. marka qofka haddii darajadiisa masterka uu complete ku sameeyo ama darajadiisa labaad ee waxbarashada uu dhammaysto, waxyaabaha lasii yani saadaalin karo waxaa ka mid ah in uu shaqooyin fiican uu helo. laakiin way ka gedisan tahay sidaas, xaalad lid ah keenina oo cagsi ah maadaama in spite of aan adeegsanayno. marka in spite of ayadoo la ogyahay completing in uu kaamilay ama uu dhammaystirtay his master's degree, darajadiisa masterka ama darajadiisa labaad ee waxbarashada. he could not get ma heli karin a job shaqo. he could not get ma heli karin a job shaqo ayadoo la ogyahay inuu master degreegiisa soo dhammaystirtay, he could not get a job shaqo ma heli karin. halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato janaalka, waxaa kaa dalbanaynaa ama kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto oo subscribe dhahato. haddii hore ee subscribe kugu ahaydna inaad muuqaalka like saarto, sharena garayso si aad ula wadaagto asxaabtaada. wixii marka oo kuweysineer ah oo ku saabsan muuqaalkan iyo kuwa ka horreeyba waxaa noogu reebi kartaa qaybta commenteska. waa mahadsan tahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.